waftiga uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade ee dhawaanaha ma ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa maanta isku shaandhayn ku sameeyay maamulka gobolka iyo waliba kan degmadaba iyagoo markaasina magacaabay gudoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxay magacaabeen maayar ku-xigeen cusub iyadoo markaasna la soo doortay gudoomiyihii maxkamadda gobolka kii degmada iyo xereerayihii guud ee gobolkaba sidoo kale waxaa la doortay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka madashaas ay lagu magacaabayay duuliyiintan cusub ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade la taliyaha madaxweynaha dhanka siyaasadda xildhibaano saraakiisha ciidamada booliska iyo kuwa militeerka iyo waliba mudanayaasha iyagu markaasi loo soo doortay jagooyinkan cusub waxa halkaasina saxaafadda ugu akhriyay Salmaan Cali Koore markii uu qaranka gobolka soo ogaanayna habsi u socodka maamulka gobolka iyo degmada waxaanu garanay inaan xilka ka qaadno meeyar ku-xigeenka degmada Laascaanood magacaawno Maxamed Aadan Macallin inuu ahaado meeyar ku-xigeenka degmada Laascaanood sidaa darteed waxaa la farayaa meeyar ku-xigeenka cusub inuu xilka la wareego sida ugu dhaqsaha badan waxaa sidoo kale la farayaa inay goobjoog ka noqdaan ka ahaadaan xilwareejinta mas'uuliyiinta ogeysiinta kule ee gobolka Sool bisha ay tahay 28 waxaan ku dhiibnay xilkii gobolka ilaahay garabkaaga ha galo ilaahay kugu garab galo adigana waxaan ka rajay inaad xilka ka baxdo assalaamu calaykum markii aanu la tashanay madaxda qaranka iyo waxgaradka gobolka Sool ogaanayna baahida loo qabo in la buuxiyo jagooyinkan oo muhiim u ah tayeynta iyo maamulka socodsiinta gobolka Sool waxaan u kala magacaabnay cid kasta xilka hoos u qoran Maxamed Saar Saciid maalin loo yara oo jooga Hargeysa uuna imanaya isagii kii maxkamadda rafcaankuba inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Salaad Ismaaciil Maxamuud inuu ahaado gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Saciid Cabdi Cali Shire inuu ahaado ku-xigeenka xereeriyaha guud waa jagadu waa nooca ku-xigeenka xereeriyaha guud ee qaranka ee gobolka Sool dib waqti dheer guddiga qaranka gobolka Sool ay joogtay una kuul gashay maamulka iyo qaabka nabadgelyada ee gobolka Sool lana tashtay madaxda qaranka shirarna la qaadatay waxgaradka gobolka Sool waxaan go'aansanay inaan xilka ka fariisino gudoomiyihii hore ee gobolka Sool Cabdullaahi Jaamac Diiri iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Maxamed Aadan Cabdi la tashigeena bulshada gobolka Sool iyo madaxda qaranka waxaan go'aansanay in Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeenayare uu ahaado gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool Maxamed Cabdi Dimbiir Daaq inuu ahaado gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Sool sidaa darteed taliyaha qaybta booliska iyo taliyaasha ciidamada qaranka waxaan faraynaa inay xilwareejinta goobjoog ka noqdaan xilwareejintuna u dhacdo sida ugu dhaqsaha badan intaas kadib wasiirka warfaafinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade ayaa aad ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiintan xilkan cusub loo qaaday isagoo markaasna hadallo dardaaran u soo jeediyay idin fududeeyo dhibaatada maanta jirta xilka la idin dhibay waa mid dab ah dhimashu leeyahay dhaawac buu leeyahay target baa idinku soo jeeda doonaya inaydan dalka waxba ka xukumin marka ama iyaga u adkaan doona ama idinka u adkaan doona labadiina saaka cidunba u adkaan doona gudoomiyaha cusub ee haatan la magacaabay Maxamed Maxamuud Xaaji Jeenayare ayaa madashaasi ka hadlay isagoo markaas waxaana hadaladiisii ka mid ahaa أنا نلوم ديبين وإحنا نلوم ديبين وادب وهنبلن قاضي يا هرتا هدي الله يدمو أنا وحوض الله هرين وحلا يدري وحندوني أنا وحقفت وقرنا يا أنا كلو مسؤولين تانا أنا وحفلا يا إن يديهن لما تشارك مدك شوي أنا لوح الغرينة صور كوهيان مركا إلهي وحنكبر يا جودهان تاني إلهي نقول له عدوغا من حياشا إنه كسر دولي أنا وحور دافين هذا مقالة ما كان صوغ على دور هذا واحد لا تذكر ولا قحي طبعا نوع شقيني بريفيكيشن قار تذكر قحينا يا قار واحد لي ورجل وذي يغانو وحرتين يا هدا الله يدمنا الرفيس قوة ضادنا عدوغا وان حريثة إن نجهلين oo inaad tin naga helin oo inaad adeer naga helin oo anaku maamulka iyo gobolka aan noqono team saas ugu xiran saraakiisha ciidanka qaranka anaku waa soo wada shaqeynay
waragan aad ugu kalsoonay wax qabadkooda mar walba iyagu shaqadooda gutaan taliyaha qaybta booliska waa soo wada shaqeynay isagana muddo dheer taliya saldhig mar waxa anna maayir ku xigeenaha maraan xogayaha oo taliya qeybaadaha marna shaqada wadanka jooga waragaygi marka waxaan ku rajo weynay haddii aan leedmo inaan si dhaxsaa guul badan u soo xareyn doono mas'uuliyiinta la doortay ayaa waxay ahaayeen maxamed maxamuud oo loo doortay gudoomiyaha gobolka Sool maxamed cabdi dambiil gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maxamed aadan oo hore u ahaan jiray maayir ku-xigeenka degmada isla markaasna haddana dib loogu doortay inuu noqdo maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood maxamed cali cartan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool maxamed saalax saciid gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka salaad ismaaciil saciidna waxa loo doortay gudoomiyaha maxkamadda degmada ee Laascaanood saciid cabdulaahi shire waxa loo doortay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka madashan ayaa lagaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsaha badan mas'uuliyiintan ay xilkooda ula wareegi doonaan iyadoo markaasna ay mas'uuliyiintu sheegaan in mas'uuliyiintan loo soo doortay inay yihiin kuwa wax badan ka bedeli doona siyaasadda qalafsan ee haatan ka tirta gobolka Sool maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool